جانس دو وي تاريخه واشان يتوانكا بش أبريل وما أنت إمامات وشكتيني في الصومالية ودعيسو أرتو مو دعي إمامات في الصومالية ما ولي بحاول كمان مقال لكن هاد ولا يسوق بدبي قرشي إيه وكا هذه يعني ماشى sida wax la dooray haday dhaarintu dhici weydo yaa hayd Soomaa saasay marka dhaarintii waa dhacday marka taas maamadii baajisay taas baajisay maamadii iyo 500 ciidan ka ahayd 500 ciidan haysid 480 waa baaqdeen iyadii ciidankeediiba meelahaas ku horjoogtay kulli meelahaas ku horjoogtay aad u maasantahay arintan Cabdirashiid Xidig horay sanadkii doorashadii hore farmaajo uu soo galayay gudoomiyaha baarlamaanka uu tartamay laguma gacan siinin oo meesha guul weyn ka mun soo hayeen balse sanadkan waxa la leeyahay fursad badan baa haysta seed u aragtaa inkastoo aad mar hore aad ka hadashay in beeshan ay gudoomiyaha baarlamaanka qaadato doorkan bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba horta waxani waa iska damac oo qof waliba waxa weeye ummadda nin walba damac buu leeyahay danaha maaragtay siyaasadana waa nin iyo danihiisa oo siyaasadda waxa weeye inta badan marka laga hadlayo qof baa dan ku wata oo isagu maaragtay siyaasaddaasi qorshe iyo hadaf iyo ujeedo kule rabo inuu dan ku gaaro dadka kalena way ka daba qayliyaan oo maaragtay way taageeraan muhiimadda marka waxay tahay damaca siyaasiga ah ee Cabdirashiid Maxamed Xidig uu hadda mar kale uu ku shaaciyay in uu doonayo inuu u tartamo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa sax waa isaga u gaar oo shakhsiyadiisa ka timid wuxuuna maaragtay mudan yahay inuu xilkaasi qabto oo ku guuleysto oo maaragtay talada baarlamaanka dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya bal sanadkan inuu garwadeen u noqdo oo isaga maaragtay uu hogaamiyo waxaan soo dhaweynayno oo aan leenahay hore u socdo kaasa way marka hore u socdo laga yimaado fursad inta lag baa haysta Xidig والله فرصته waxay ku xiran tahay xildhibaanadu cid isqaabka ay u doortaan xildhibaanadu way tirab badan yihiin 275 xildhibaan Soomaa 275 waxaan dhihi lahaa Xidig doorta maxaad sababtu maxay tahay aad sabab deewaan idhiun haa sababta sheeg waa sax maxay sax ku tahay inay doortaan feri بالكن قدومك برلمانك بال ما إسكاله يا إسكاله يا أقرأي من دكتور با أقرأي كودة كرسي كان بال با إسكاله أو سو هيسي أنا ودكتوري وحقرأ قرمينه بال با يا لوي غنى سو هيسي لا ينتي دبلو أساسي برلمانك دولة الصومالية بله كلنا وحي كتر تمين لو بلاد كم مدينة مدحوينه هي يay ku tartamayeen oo kolba si uu kala dhacsadaan ay ku xidhnayd Cabdirashiid labada beelood ee madaxweynaha ku tartama yumid ka mid yahay haduu gudoomiyaha baarlamaanku isagu isu sharaxo arintaas soo meesha kama saarayso in beeshaas ay madaxweynaha u tartanto xalay waxaan arkay qolo taageersantani oo leh reer Hebelow sheega inaad Cabdirashiid Xidig ku raacsan tihiin maxaan ku raahdaa is sharaxida gudoomiyaha baarlamaanka reer Hebelow cadeeye reer Hebelow sidan reer Hebelow kan war waxan reer Hebel ma joogto idinku marka hore waxa cadeysaan inaad dani aad idinku reer Hebelow soo maaragtay aad keenteen siyaasiga meesha imaanaya isaga iswada cidna ma wado reer Hebelna shuqul kuma laha reer Hebelna ma reebi karaan reer Hebelna ma soo sharixi karaan reer Hebel waxay maaragtay awoodoodu joogtaa oo shaqeysaa inta maaragtay xildhibaanka baarlamaanka la raadinayo mar haddii xildhibaanka laga soo dhax qaato qofku waa jaanta rugan weeye wuxuu rabo samaynayaa waxa weeyaan marka anigu waxaan leeyahay waxaan hadda la leeyahay daarood iyo hawiye iyo waxyaabahaas qashinka ma aaminsan anigu qofka damaciisa baa shaqeynaya qashma waa beelajiro u kaadiye beelajiro nidaamka ma u kaadi fiiri ma qaabka fikradaha yaani markaan ku leeyahay qashinka in loo in la yiraahdo iyagu u xiran yahay ma dastuur baa u xiran mise sharci baa u xiran yaa u xiran hawiye daarood kursiga xagee ugu xiran yahay meesha teeda kale hawiye nin uu keensaday ama daarood nin uu keensaday miyaa jira oo yiraahdo maanta kana noogu fadhiisanaya
raxweyn nin ay keensatay ama maxaan ku yiraahdaa isaaq nin uu keensaday miyaa jiro oo la yiraahdo maanta kana noogu fariisanay waxaas ma shaqeeyaan dadka fiiri maskaxda laga dulaysanaya dadka oo waxa la rabaa in la yiraahdo ma aha waa in la bedelaa hadda la bedelaya maanta caawa la bedelaya يا بدلي أنا بدلينا أذكر يا أنا بدلي جامعة خيالي كتب هذا ما والله خيالي ما نو خيالي ما وإن عبد الرشيد محمد حديق ونقضاء قدوميها برلمان كفدرال كالصوماليا سوى حن غيره أي إسلام فيري نقول بيسقى دون توحى صومالي ونكد إحراس ده وحرير هبل اللي يجهده أنا أركتنا وحن ديدا يا حرير هبل أركتنا الرير هبل اللي يجهده ديدا يا نكل يا سعيد عبد الله دني ومدحوينها بلان صومال بلان ميو كدونتي مدحوينimada Soomaaliya ee xamar u soo raadsanayo بلان ميو كدونتي madaxweynenimada Soomaaliya ee xamar u soo doonanayo oo miyuu Bلان ay kolka hore idinku doorto igeeya tibantana way doorto madaxweyne wahay ma tii Soomaaliya miyay u doori karaan ma waxay ka bedeli karaan saxaabay ku kordhin karaan talay kuleeyeen miyuu weydiiyay taladii dadka la taliyo weydiiya laga yaabo ma kuwa la taliyo gooniya shir intuu qabtay uu reer Puntland ku leeyahay reer Puntland waxaan rabaa halka inaan aade dhabarka iga soo dharbaaxa tii wax reebel uu doortaba ma jiro ma wax reebel doortaa iyadoo ay marka sidaa tahay ba kuwa waxay rabaan aqliga cagaha laga galiyay inay dhahaan xidig ogaadeen oo ka hadla oo reer hebel oo ka hadla oo Axmed Madoobe oo ka hadla ma xidig waa qof xor ah kursiga isaga doontay ogaadeenna shuqul kuma laha daaroodna shuqul kuma laha Soomaalidu ka dhex raadsanaya Soomaalidaasna waxa la rabaa inay siiyaan oo ay jabiyaan recordka waxaan leeyahay reer hebel baa u xidhan yahay reer hebel baa u xidhan yahay oo sanadkan maxaan ku ilaahay tarxan weyn madaxweynaha qaadato hawiyana uu qaato kii kale muxuu ah ama isaaqna uu qaato ra'iisul baarlamaanka hawiyana uu qaato fayeenka baarlamaanka aqalka sare arida in xaqiiqada loo rogo way wakaasa Soomaaliya garan laakiin laga gudbo waxaan dadka loo xidhay haddana eeg kuwan uu xidhan yahay reer buu haddana uu xiran yahay kursigu soo lama dhihin hawi uu xiran yahay haddana waxa la reer buu xiran yahay waxa la daarood buu xiran yahay haddana reer gaar uu xiran yahay eeg waa in laga gudbo xayndaabkaasi oo shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo madaxda iyo bulshada in maxaan ku yiraahdaa nin waliba isaga oo xor ah ninku rabo uu doorto umaduna kay rabtaa ay doorato sidaas daraadeed si looga gudbo waxaas waxaan leenahay Cabdirashiid Maxamed Xiddi gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in 275 xildhibaan ay u doortaan oo farmaajo iyo daniba daaqada laga tuuro duuduub in dhulka la isla jiraa wakaasa wala meesha xiliyihiisu fuulaa nin xambaara iyo nin waxdan u wada ma jiro walaalo bariiska waxa iga siina la isma dhahe waa la kala qaata isba bahasha saldanada la yiraahdo la isma siiyo ninkii ku calaacalahaya hebel muxuu sidin u yeelahayaa isaga u taala wuxuu saldana weey waa saldana weey saldarana la isma siiyo waa la kala dafaa Soomaa garan waxaan rajaynayaa marka sanadkan Cabdirashiid Maxamed Xiddig inuu dafo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeedna inay maaragtay si waliba dadnimo ku jirto oo maaragtay saa'ida inay ugu codayn doonaan iyaga ay ku xumeenay fadlan iyo farmaajo hay xaga kalena maxaan ku yahay gudoomiyaha qoladii gudoomiyaha baarlamaanka la maxay sameeyeen hadii uu Xiddig soo baxo waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya noqonaya say noqonayaan qoladii kale madaxweynaha waa laga kuwaana waa laga bursan cid u sharaxan ma jirta kuwa waxaan ka yaabay iska waxa soo sharaxan rabay taasa dhib ah oo kaasa oo ay rag meel fudud ka qaataan laakiin waxaan rajaynayaa qof macquul oo iska soo sharaxay gudoomiyaha isu sharaxay ilaa hadda laba sharaxin dan ogahay laba shay 20 ha sharaxnaad shaqada Madoobe iyo wala isna waa mudan yahay iyo nin kale oday waa mudan yahay laakiin ma sanadkan in la bedelo kaartada aad baan u soo dhaweynaya anu Xiddig isaga kaartadii daciifka ah Xiddig intuu gudoomiyaha baarlamaanka orday madaxweyne raadsado waa isku mid ma waxa meesha waxa laga rabaa oo kaliya in taariikh la dhigo
oo laga jibiyo maxaan ku yiraahdaa toddobiye daarood kan reer hebel baa marka xidig taariikhda u jibinaya ha taariikhda inaan jibno daaqada ka tuuro oo in kursiga dadka Soomaaliyeed nin walba ku raba uu doonan karo ku raba taa kale kursigani waa kursiga ugu awood badanba waa kursiga madaxweynaha halka qaban kara وارد سماه لكن قدوميه برلمان مدحوينه عقاها ku wato madaxweynuhu cagaha ku wato Soomaaliyeed gudoomiye baarlamaan hay Soomaaliyeed la isticmaalayo kalba meel loo cayrinayo markii la rabo sidii la rabo laga yeelayo oo laga dhaxlayo la leeyahay sida yeel gudoomiye baarlamaan oo baarlamaanka shirnay hay waa sax ku isagu madaxweynaha shirnaya rabnaa inuu noqdo inuu meesha yimaado ku isagu madaxweynaha shirinaya oo markuu raba xilka ka qaado caydiyo inta mooshin ka keena hadoo raba shaqada ka joojiyo awoodii baarlamaan ee uu lahaa isticmaali kara oo madaxweynaha la xisaabtamo oo kontarolaan rabnaa inuu yimaado kaasina waa Cabdirashiid Xidig waa kaasina Xidig madaxweynaha caydin doona hadii loo baahdo hadii loo baahdo aan ku yiri oo uu guuleysto kane ka kalena uu kaba soo qaad uu ku soo baxo Cabdiraxmaan Cabdishakuur labadoodu waa in qoorta qartab isku dhahaan kadibna daaqada laga tuuro madaxweynaha inta laba nin oo qartab isku oran la raadinayo laba nin oo si fiican wada shaqeyso waa sax iyadana laakiin gudoomiyaha baarlamaanka awoodihiisii laguma shaqeynayo waka jawaar markuu ducaan ku shaqeeyana waa tii maxaan ku yiraahdaa waxa ogeed lagu dhigay tii hore Xasan Sheekh meeqa goorba mooshin laga keenay meeqa goorba mooshin laga keenay la bursanayo maalin walba uu la urdahay ra'iisul wasaare la eriyaday oo kan la eriyaday ya gudoomiyaha markaas de jawaari baa uu shaqeynayay markaa intii mursal joogimad maqash hal mooshin oo la keenay baarlamaan Rejubaland ma ku raacsan Xidig waagi hore waa diidanayeen looma baahnaba inay ku raacaan iyo inay isku raacaan ما هو دولة مدكيسي كسر دورتين wax looga baahan yahay wala Axmed Madoobe wala waxan aad ka hadlayso oo dhan waxaas oo looma baahnaba inay ka hadlaan iyo inay ka hadleen waxba laga weydiin maayo sababta qofkan isaga damaciisi la shaqo tagay war damaciisa la shaqo tagay dowlad goboleed ninkan ka soo jeedo dowlad goboleedka ma matalahayo ma wata haayuna matala ma u baahnaba waxa uga baahnaba Axmed Madoobe qolkiisa isaga jiro هاي وكاس واحد uga baahan yahay ka Cabdirashiid Maxamed Xidig baa la yiraahdaa xinihiisa banaanka u yaalo wixii soo bursanaya hadii waayna uu iska tagay hadda kale uu qaadan waan in badan soo jabay waxa daro haduu jabana nasiibkiisa haduu guuleystana nasiibkiisa rag badan waa inuu diyaar garoobin oo jabin oo dad badan yeelkadiisa isaga u taala annaga waxba dhagama gelin muhiimadu waa inuu is sharaxo meesha inuu tago inuu damaca kuwan maxaan ku yiraahdaa toddobaad dahay Axmed Madoobe kow ka yahay dani ku jira ee farmaajo ku jira ee kan naxaye ee maxaa isugu soo sharaxaysa kursigan inuu meel ku xidho weey oo dhaho waxba lama joogtaan nin walba isaga saldanada raadsada nin tunka inta la soo qabtay yaa kaalay noqon madaxweyne ama waxan noqo ma jiro markuu sanadkan gudoomiyaha baarlamaanka noqon sanadka dambe madaxweyne noqonaya xogaa buu aruursanaya waa hagaag aad iyo aad buu maasay jamac galada kaasi intaas ku soo gabagabeynayna waa ogaan doonaa Cabdirashiid Xidig ama Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo musharaxnimadiisa iyo gudoonka